بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال waxaan idin kala hadlaynaa magaalada Kismaayo halkan waa channelka Dakaweyne Media taariikhdu maanta waxa ay ku beegan tahay labada bisha lixaad sanadka 2020 magaalada Kismaayo ayaan muuqaalkan idin kaga soo duubaynaa gaar ahaan xarunta wasaaradaha Jubbaland waxa dhinacayga fadhiya abwaan Amiin Saxane Haraan abwaan diirane oo aad wada taqaanaan abwaan haddaan maanta qaldaneen waxay ku beegan tahay labada bisha lixaad sanadkii 2019 waxaan xasuustaa in aad channelkan si toos hawada u geliseen maantana waxa ay ku beegan tahay labada bisha lixaad sanadka 2020 bal dadka u yara muuji oo u yara saxiix midda ku yara aadan oo ah in channelkii maanta uu hal sano jirsaday hagaag alla ilaahay waa runtii waa cabdicasiis fantastic aad buu mahadsan yahay oo ka tirsan Dakaweyne Media hagaag maanta waa labadii bishii June 2020 ilaahay idamkii sanadkan soo dhaafnay labadii bishii June 2019 waxaan furay channelkan Dakaweyne Media oo aan dhigay barnaamijkii ugu horeeyay idamka ilaahay cabdicasiisow marka waxay ka dhigan tahay 365 maalmood in laga jooga maanta oo u dhiganta hal sano in laga jooga markii aynu aasaasnay Dakaweyne Media oo leh asxaab aad u fara badan all over the world oo uu furay waa ragta jaamacadda IIU Indhacadays International University kamidna ah abwaanada qaranka kamidna ah macallimiinta qaranka kamidna ah indhacadayska qaranka kamidna ah jilayaasha qaranka kamidna ah waxaan lagu yiraahdo afka qalaad elders oo marka la dagaalamo maaragtay odayada loo yeedhan ku jira waxday kaaga runtahay ilaahay idamkii halka ka sii wada hadaba aad iyo aad wad wada taqaanaan waa Amiin Saxane Haraan abwaan diirane waqti adag iyo juhdi adag ayuu channelkan u soo maray sida aan xog ogaal iyo dadka Soomaaliyeedba ay ka warhayaan laakiin markaad fiirisaan abwaan kullay horta dadka Soomaaliyeed waxyaabo badan bay kaaga barteen barnaamijyo badan baad caan ku tahay oo aad maanta channelada kale kaga duwan tahay xitaa aan idaahdaba hataa warbaahinta guud ahaan abwaan waad
jooga hana ka dheeraynina hana ka gaabinina haddaad ka dheeraysaan diiraddu gaar bay idiin qabanaysaa haddaad ka gaabisaanna iyaga laftooda ayaaba hadday doonaan idinku soo kala xeelaya isteerinka ha ka gaabinina dadkiinnana ka mid ahaada kullu umuurin awsadihaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam baa yidhi soomaaliyay kuwa maraykanka joogow dadkiinna ka mid ahaada waan kaaga baxay waa tahay abwaanka sidaad wada dhegaysanayseen daawadayaal waxa uu sharaxaad ka bixinayay qaabka janalka Dhaka Weyne Media sida uu shaqeeyo gaar ahaan barnaamijyadiisa ayuu tiriyey dabcan runtii idinka ayaa naga xog ogaalsan abwaanka iyo waxyaabaha uu halkan ka bixiyay abwaan in badan dadka Soomaaliyeed barnaamijyo ayay kaaga barteen gaar ahaan barnaamijkan horin la yiraahdo oo barnaamijyadaada ugu waaweyn ka mid ah aad iyo aad dadka Soomaaliyeed waxyaabo badan bay isweydiiyaan barnaamijkaas waxaad ku soo bandhigtaa wixii ay bulshadu ku sheekaysanaysaa absolutely waxaan anagu cadeynaynaa iyo qaar ka mid ah wali daawadayaasha oo ay cadeeyaan in barnaamijkaas uu yahay barnaamij aan fari ka qodnayn oo in badan waqti aad soo geliso juhdi aad ku soo diyaariso absolutely waa tahay horin ereygaas dadka u sharax waa yahay koox hayn waa yahay agaad cantoobo horin wada seem dadku waxa ay ku sheekaysanayaan waa very important muxuu very important u yahay wuxuu u yahay kolba biicada iyo saaxada aad joogto dadku waxay hadal hayaan wuxuu yidhi horin bulshadu maxay hadal hayeen harka galay maxay kuwaasaa weeye habeenkoo dam yidhi hilimada maxay ku hadaaqayeen guri daaqadla baa joogtaa dariiq baa ku agmara 5 qof baa maraya maxay hadal hayaan dhigtaa dhigaysaa waa loo baahan yahay waryaahe war ninkii la oranayay falyadikaana madeero waa Francisca Madero waxa loo bedelay falyadikaana Madero ninkii falyadikaana Madero ahaa ee ururka AU oo ahaa bahalkii muxuu ahaa isheeg wakiilka u ahaa intuu golaha ammaan ka kacay ayuu wuxuu yiri bederagadha markaas waxa la yiri falyadikaana Madero wax kale ma hadal hayaan dadka dariiqa maraya falyadikaana Madero hadal hayaan iyo wixii uu ka yiri jumcada qulmaa ka dhaxaysa taa ka soo gudbi inaad horta hadaan ka hadal badiyo iga raali haw nin la yiraahdo Ali Xaraare ya habeeli waraystay markaas malaha waan ku fakaday dadweynihii isagii baa wuxuu leeyahay anigu hadalkii baan wataa ila markii dambe dhageystay deeg waxaan ku yiri abwaan waxaan ku yiri anna ma ogiba Soomaali garan 5 kan Soomaali mar ko eega daba inaad roday waxaad weydiisay jabkii kuugu xumaa waxa la dumarku baraarahooda ka sheekeeyaan raguna biisu ka sheekeeyaan waxaad weydiisay tiri hadaan khaldanayn markii kuugu daray dunida arrimihii dhacay kuugu daraa niman yaanadii warramo horta gubaaba guru markaan salaamaya sanad guuradii koobaad ee ilaahay idamkii ka soo wareegtay Dhaka Weyne Media markii la aasaasay waa 2 bishii June 2019 horta bal intaan u gelin barnaamijka hadda doonaa kala hadlo bal hadda kudaro marka libin gaariso hadan la qabala kaco xaqayga kuwii la sadayo antayda qabalin gaxano ha malito adabtiye marka laba kudaro marka libin gaariso hadan la qabala kaco xaqayga kuwii la sadayo antayda qabalin gaxano ha malito adabtiye hagaag haddaba haddaan halkaa ka sii socdo horta aniga waxaa igu daray wax dhagahaygu maqlaan oo i soo maray dunida dusheeda
maxamed islaam horta aad baad ugu deel qaaftay waa tahay aad iyo aad baad ugu deel qaaftay taas dalku waa iska dimuqraadi oo fikirkaaga xor baad u tahay xor baad u tahay anna waad igu qaadqaaday waa igu qadqaad anna waad igu deel qaaftay haye isku soo wada duubo Ha. kadifaar waan salaamay Waa salaamay. iyo odayaasha degmada kalabaydh waa gartay waa markii lamaad ee degmada kalabaydh barnaamij ku xuso Waa tahay. kulligii soo dhowaada feedha geelle oo ah afhayeenka beelaha daarood beelaha daarood horta kiina xoog weyn waxaan u malay haddaad feedh isku qaadqaadaan Waa- dhulkaad dhigan lahayde Khatar waa, marka aan arkay waa fulaya inaa sheegtay laakiin ogow ya yaa inaa sheegtay halkan quulle cabdixisiin quulle cabdixisiin quulle cabdixisiin wuxuu yidhi afhayeenka beelaha daarood waa aniga Waa ninkaas buu hoodla jooga Ah. wii xoogayaa buu yidhi haye waryaa feedha geellow afhayeenka beelaha daarood waa lagaa qaaday Waa- inaad ina iska raalli haw haye danina dee dhinac ka mar dani haddaad ka leexan weydo haddaana kuugu iman laascaano habarta ima dhalin Waa tahay. islaan kaloo deris hayn bay dhashay waa tahay waan kaaga baxay naadeerow waayahay abwaanka kolley waan filayaa dadka uu halkan ka salaamay in ay markaas iyaguna ay salaantaas mid lamida ay hawada u soo marsiin doonaan abwaane maadaama sanaduuradii koowaad ay tahay janalkii dhaka weyne waa ilaahay mahaddii maadaama uu hal sano jirsaday abwaan maadaama wax walba la qabanayo howl walba la qabanayo qorsho ay leedahay bal janalkan maadaama uu haddana sanad jirsaday
waxaan ka hadalnay sanad guuradii aad iyo aad bal dhinaca kaalmaha suugaantan u yara leexanayna jacaylka isku tiin adiga jacaylkani horta intaa isaga iga soo reebay Aye. midda kale anu jacaylkaygu wuxuu kaga duwan yahay Aye. adigu markaad gabadha aragto Ah. yaa jeclaataa aniga jacaylkaygu wuxuu kaga duwan yahay mata Aye. jacaylkii baa ii yimid Aye. aniga jacaylkoo isla soconna Aye. yaa gabadha daydayna waayahay matana may Aye. buu leeyahay jacaylkii Waa. somaad garan Aye. haddaba aan inoo dooro anigu Aye. waxa weeyaan Ah. bajaqaabajaqay bay baratay Aye. heesihii hoose bajaqaabajaqay wixii hore Aye. bajaqay oo dhan aan uma cuno Aye. cabdiqaadir xasan nageeye Ah. iyo heestii Ah. yay nabsigu sida geed harkii ayuu labada gelin midba geesiira ayayne keene ahaha keene ahaha keene gardaran bal hadda dadkoo gamasanoho galowga hurdaan sida gaarsantari gabadhi ay dartaa guraynaya keene idhe keene aha keene gardaran Kuleet hurdow uumaan gabbane goortaan garduur geeddiga u faray waan ku gees maray sowmaad de sowmaadan garan waayahay abwaanka aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay abwaan Ha. maxaa kaloo ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa fari kama qodna Haye. ilaahay idamki nimankii ahaa ma garanaysaa
idhaahdo jidkayga leexiyaan hankayga ilaalayaan wixii hantiyaan lahaa cadaawow loogayaa waa tahay bal inta aan kaga nimaano kaalinta suugaaneed abwan sheekaad ii waday sheekadii ku saabsaneed maxamed amiin faarax kumana dhamaystirin imaadan dhamaystirin ninkaasna waa tegey ninkaad hore iga sheekeynaysay asagana nin kaluu dilay laba nin baa naga baxday ilaahay ha u naxariisto allah u naxariisto cafiya musaamax waxaan hadda u soo noqonaynaa sheekadii maxamed amiin محمد أمين أحمد مجن محمد أمين فرح الله يا أحمد مجن وقدوميها حسبك إفتينك عدالة يهرمرك حسبك كمتشرو مضشة حسبية قرن الصومالية لكن وحسب دارو توجا لو أن قدوميه هو إيمانيا ومحمد أمين فرح الله يا أحمد مجن ولو يقان أركي وهو إيمانيا صوماليا وهو كقبل الله للي عيسى مجالك اسماعيل تطبيق طبعا كبشة تشون إلهي إدمكي أنا يبيشة أنا هذا بحضة لك ويلميدي واللي سول وين دونا إلهي إدمكي وأنا نكا لوجيا بيها إنه نقدم مدحوينها دولة فدرالك سنة كلامكم يكوبيا لباطن إلهي إدمكي قصوا عمرك أنا هوست كويستي أنا هاي نقطة بياني أبواني برامج كيني واجب جبو بل محاكرو إنه أنا هي هالحلالي واتاي إلهي إدمكي أدوغو تلقى شيء داود كوحدة إن idhowra dhageystayaasheedaan ugu talagalay na dhowra dhageysti ama idhowra dhageysta waa erey aan doonayo erey bixin aan anigu soo bixiyey oo doonayo